waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iideysto inaan u tacsiyeeyo ama tacsi u diro dadkii ku waxyeeloobay xiisadihii magaalada ka dhacay maalmihii la soo dhaafay taasi oo ahayd mid laga murugoodo oo laga baaqsan karay allah u naxariisto intii ku dhimatay intii dhaawacantayna allah ka kiciyo waxaanu go'aansanay inaan xalka ku raadino wada hadal inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka balse aan tusaale u noqonno ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkeena magaaladan qof ahaan aniga lexjeclo weyn ayaa iga haysa maxaa yeelay anuu magaaladan aan ku dhashay magaaladan aan ku barbaaray dugsi quraan ka bilaabay dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare uga baxay aan ku barbaaray ku weynaaday macnaheedu waxay tahay lama ogolaan karo in dalkeen iyo magaaladanba mar labaad ay ku laabato dhabbadii foosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor magaalada muqdisho waxaa laga abuuray qalalaaso xasarado qorshaysan waxaa la barakiciyey shacab waxaana khatar la geliyey naftooda iyo hantidooda dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan idinkula dardaarmayaa ha noqonina xaabo la shito oo dana shakhsi ah lagu gaaro oo haligi kara naftiina maalkiina dadkiina dalkiina iyo diintiina mudanayaal iyo marwooyin 12 April 2021 waxaad soo saarteen sharci gaar ah oo ku saabsan jihaynta doorashooyinka federaalka si aad dalka uga badbaadisaan dib u dhac ku yimaada iyo hubanti la'aan ka dawlad ahaan markasta waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dadaalnay in la ilaaliyo xasiloonida caasimadda iyadoo aan si kasta oo suurtagal ah aan ugu dadaalnay in dhawaaqa rasaasta laga ilaaliyo dhagaha shacabka magaalada muqdisho qof walba oo Soomaali ah oo wadani ahna uu rabaa caasimadan inay noqoto caasimad bilic leh caasimad weyn oo dad badan degan yihiin inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka intaas waxay ku timaadaa inay caasimaddu ay tahay nabad waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed ay markhaati noo noqdaan oo ay kala fahmaan cidda doonaysa inay doorasho dhacdo iyo cidda diidan